madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa bedelay wasiirka gaashaandhigga Sergey Shoigu oo ay muddo dheer saaxiib ahaayeen sida ay Kremlin ku dhawaaqday. 68 jirkan ayaa xilka hayay tan iyo sanadkii 2012 waxaana loo magacaabay xogayaha golaha ammaanka ee Ruushka oo ah golaha awood badana. Waraaqo ay daabaceen aqalka sare ee baarlamaanka Ruushka ayaa lagu sheegay in Mr. Sergey lagu bedeli doono ra'iisul wasaare ku-xigeenka Ruushka ninka lagu magacaabo Andrei. Sergey ayaa door muhiim ah ka qaatay dagaalka Ruushka uu kula jiro Ukraine. Waraaqadaha dawladda Ruushka ayaa muujinaya in madaxweyne Putin uu doonayo in Sergey uu kala wareego Nikolai oo ah golaha ammaanka ee awoodda badan. Ilaa hadda ma cadda waxa uu noqon doono xilka cusub ee Mr. Nikolai. Sergey waxa uu xiriir dhow la leeyahay madaxweyne Putin. Waxaa la siiyay faylka difaaca inkastoo uusan lahayn asal ciidan kaasoo lagu darajeeyay. Sergey waxa uu caan ku noqday madaxa xaaladaha degdega ah iyo wasaaradaha gargaarka musiibooyinka sanadii 1990-meeyadii. wuxuu inta badan si qoto dheer uga taxadari jiray xilkiisii ahaa wasiirka gaashaandhigga, gaar ahaan kadib markii uu Ruushku si buuxda u weeraray Ukraine in ka badan 2 sano ka hor. Falanqeeyaha BBC-da ee Yurub Daniel Abraham ayaa sidaas sanadkii 2023 Sergey waxa uu dagaal dhex maray isaga iyo madaxa calooshooda shaqaystayaasha ee Wagner Yevgeny Prigozhin oo ku saabsan habdhaqanka Ruushka ee dagaalka Ukraine. Prigozhin oo hogaaminayay gadoodka muddo kooban socday oo ka dhan ah Moscow ayaa ku eedeeyay Sergey inuu ahaa bac wasakh ah iyo waayeel ebra. Fariimaha maqaalka ee faafaya madaxii calooshooda shaqaystayaasha ayaa ku dhintay shil diyaaradeed isagoo ka duulayay St. Petersburg kuna socday Moscow bishii August ee sanadkii 2023. Kremlin ayaa beenisay inay eeda shilka lahayd. Ninka bedeli doona Mr. Sergey ee lagu magacaabo Andrei waa dhaqaalayahan leh khibrad ciidan oo yar, wuxuuna dadka qaar ku noqon doonaa la yaab. Laakiin marka loo eego aragtida falanqeeyaasha kale, tallaabadan ayaa muujinaysa in madaxweyne Putin uu doonayo inuu si dhow ula jaanqaado dhaqaalaha Ruushka iyo dadaalada dagaalka. Afhayeenka Kremlinka ee saxaafadda Dmitry ayaa sheegay in soo jeedinta magacaabista qof rayd ah ay muujinayso doorka wasiirka difaaca ee loogu yeeray hal-abuurnimo. Natiijo ahaan waxaa laga maarmaan noqotay in la hubiyo in kharashaadka militariga si wanaagsan loogu daro dhaqaalaha guud ee Ruushka, ayuu yidhi. Qofka u furfuran hal-abuurnimada waa kan ku guulaysan doona goobta dagaalka, ayuu raaciyay. Tafatiraha BBC-da ee Ruushka Stephen ayaa sheegay in beddelka Mr. Sergey uusan ahayn mid la yaab leh maadaama uu xilkiisii noqday mid daciif ah in muddo ahna la hadalhayay inuu waayi karo shaqadiisa. Ololaha Ruushka ee Ukraine waxaa ragaadiyey dib u dhacyo ciidan iyo khasaare weyn oo rag iyo maalba leh. Lahaanshaha dhaqaalayahan ahaan wasiirka gaashaandhigga waxay ka turjumaysaa isbeddelka mudnaanta leh ee Kremlinka. Steve ayaa yidhi dhaqaalaha Ruushka wuxuu hadda ku socdaa dhinaca dagaalka, sidaas darteed waa muhiim in wasaaradda gaashaandhigga ay haysato lacag ku filan oo ay ku maalgeliso dagaalka. Sida laga soo xigtay saraakiil dowladeed oo aan la magacaabin oo uu soo xigtay mareegaha madaxa bannaan ee Ruushka ee The Pel, Mr. Andrei ayaa loo arkaa inuu yahay adag oo dhinaca dawladda ah, kaasoo aaminsan in Ruushka ay ku hareeraysan yihiin cadow sida madaxweyne Putin oo kale. wuxuu aad ugu dhow yahay kiniisadda Ortodokska ee Ruushka. ka hor inta uusan noqon ra'iisul wasaare ku-xigeenka, wuxuu u shaqeeyey dhowr sano isagoo gacan yaro u ahaa Mr. Putin. intaa ka hor waxa uu ahaa wasiirka horumarinta dhaqaalaha. waxaa la sheegay inuu ahaa xubinta keliya ee ka midka ah wafdigii madaxweynaha ee dhinaca dhaqaalaha ee taageeray Kremlinka la qabsado sanadkii 2014. madaxweyne Putin ayaa markii shanaad loo dhaariyay xilka madaxtinimada Talaadadii kadib markii uu ku guulaystay doorashadii dhawaan ka dhacday dalka Ruushka oo uu helay 87% codadkii la dhiibtay isagoo aan la kulmin mucaarad lagu kalsoonaan karo. waxa uu hogaaminayay Ruushka ilaa May 2000. xubnaha golaha wasiirada ee xiriirkooda sii hayn doona waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee rugcadaaga ee Sergey Lavrov.